And now, ladies and gentlemen, the winner! علي لوجي ورثنا قومي وكهلا يا اسكتي علي يوسف وطلعنا بقص سوق قبطي دبنا حنا رسول دغاي إلهي كما هنقيا وحيد ayro gacanta daarood ka baxay waa galad ilaahe wuxuu galabta quutaana wowgeeda timireede dabadeed ba aan wada goone gacaliyo waaka aroola maxamed kali oo isla arrintaas ka hadlaaya ha yeeshee waqtiga ka horreeyay intii aan soo qaban ahay cali yuusuf iyo askartiisa laakiin ka eed sheeganaya wuxuu yidhi rugta ceel cad nimankii degay ee ruugga cayr jabiyey iyo gaalka soo rogay rasaas ima kala roona riya guray darooriga keen iyo rugoonleeya iyo maansadii rogana ahayd ima kala roona sayidkii adduunkii rogay ee reera baabi'iyey iyo haatan rawlaha ka yimid ima kala roona gabadhii aan reerayn tegay ee raalli noqon weyday iyo bahalka raarkayga ruray ima kala roona nin rujaala oo boqorku rabo iyo raxan ulaalayda raqda kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod caymi afartanimo igu rigtamay ima kala roona nuure cabdulla cali oo isna askarta habaaraya wuxuu yidhi sidii tuug la soo xiray waqay toban cod leeyeene sidii tays la gowracay waqay tuducu yaaleene dhallinyarada tuurka cad waqay tuurin geeliyeene tunka waqay ku qaadeen carruurta haara dhaadheere tahna nimaan u dhiibayn gacmaa waqay u taagteene hadday tira badnaadaan waqay toban ahaadeene intay toobad sheegaan waqay cadaab ku taheene tanaadiyo faqiir waqay macluultuba la yaale cali lugey oo mar kale gabaygu ku noqday laakiin la hadlaayay ninkii la odhan jira faarax ismaaisna wuxuu yidhi sidaada u tagu gurubsateen xeriina ka guuday ibraahimo gaarsuu u maray kuma soo geline reer gaala eeri waa ognahay inaad isgoobtaane geyigaa wixii joogi jiray waa gabaahirige gubataa marto laguma oga goosan meel galow wagaasina ma dhama faarax cismaan kawto oo la hadlaaya niman ay intay dirareen loogu xukumay lacag dabadeedna ku gatay sac la yidhaahda dhebel oo ku faanaya in laga baqay ee aan dhaawaca iyo socod isla ekayn wuxuu yidhi arkuba hadduu dharan gale macida dhiigaysto ee dhaqanka neef loo jeclaa dhunta kala gooyo dhaya looma aadee rag way isugu dhawaaqday meeshuu ka dhow leeyahaa lagu dhaqaajaaye aniguna dharaartii haddaan dhowr nin halaakeeyey dhamigay ahaayeen bacayr la isku kaydhoobiye dhallinyariyo waayeelba waad dhiribsanaydeene dharacaad ka yaabteen haddaad nin igu dhowrtaane ilaahay ninkuu dhaqahayuu fulay u dhiibaayey badigood cidiidii loo malee dhibibtirkiiniye dawaad dhididle awrkuba hadduu dibinta dheeraysto ee dabada dhebis oo marsado dhuxul sidaad moodo dholahana murmuuriye dhalow ka siinayo qalmaha dhadiigi goojaday dhabarka saaraane anna dhowdi maaye haddaan idinku soo dhaarto cadki niman la dhiibaynin baad igu dhaliisheene allow dhaaweci gaban ahaa dhebal ma loo keeni
faarax shuuriye iyo nuur cali qanof doodii dhex martay oo gabayga ku saabsanayana ina duubaynaa. nuur cali wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya gabadhiisi yartahayd ee laba sana jirta ahayd, kahay korriimada haddaad kaamilnima gaadho, kun iyo kow kadoolaha rag waad wada kulmaysaane, kufkaa midaan ahayn baa jiro kulama doonay. askari waa kulayl badan taho kulama doonayo, aadmiga ninkii koran ahaa kenadiid noqoye, hawiyaha kilwada loo furo badarka kiilaya, oo adan galankiisa qoon kulama doonayo. ajeerteenku waa kala kaca kayn hadduu degowe, kufkaa midaan ahayn baa jiro kulama doonayo. reexaanka xibankuududee kaba wardaaqaya, ee hadalka qarartuu ku oran dhidid ka soo horo, asna waa kulayl badan yaho kulama doonayo. kunka wagax dhaceed waa kalihii kaha waa beriye, haddii aadan ariga koolkoolin oo kaalay oranaynin, ayaaguna karbaash kula dhaco kulama doonayo. ogaadeenkii kulihii wax dheer kor uga guuraya, ee maradu kabadaatahee dhuuga karanaya, isna waa kidhiish badan yaho kulama doonayo. kibirkii shirshooriyo la arakaynka reerada hagare, waa faraxoo kale ninkaad kadinka saadhaye, intaad hilib gammaan karin lahayd kulama doonayo. kitaabada xereed waa hunguuri koorka loo suraya, kutubkoodu waa wada kulyo kulama doonayo. warsangeliga awrkii xirkada koruu jalleecaya, jilaal dheer haddii uu jilaal dheer kolkii uu dhece kaydka la idlaysto, koosaraaduu ka dambeeye kulama doonayo. kalkatiyo suwaysiyo basriyo kolonyadii kaarta, kumayaal rakaa bixinayo kaaran baa jiraye, kasna malaha oo dumarku waa koradadabgeeye, adigoo kudaan kudaynayay kuraya raacaane, iska koro karin baa jire hayskarkabaday. waxaa u jawaabay faarax shuuriye, wuxuu yidhi haddii kaabagabay layoogaa karinay fuulay, karin mahadee niman baa kacay oo laygu kalmeeye, kabalyeeri baan saanahaa koruga weynay. kabiirkiyo sida macallinkaan ugu kalaamay, kitaabkii aan haystiyo fartaan uga kidbeeyaaye, sidii kenadiidiyo calaakayga loo maqal. kaafiyo hikaad niman aqoon kulub qasbuu sheegi, kibir iyo cayaaruma hadleen kuray sidiisii, kor wixii ka soo gala ciddaan kala shawsida. in makrinad soo kiicin hayo kururi waa yaabi, koli eriga ninkii suubsadee koraya baabuurka, sida kabarna tooraha haddaan shawlad soo kiciyo, dad ninkan kulkaygiyo ka baqin kara kadaan haysto, kasma niman lahaynuba hadduu koliisa soo taago, kaftan waxaan ahayd waa inaan dhagu karbaasha. ninkii kaleedi joogtow imow kolonyadan haysto, haddii kala sakay laga baqaye kabaha ii qaada, kugde oo kabaar lagu wadiyo kugu ciyaarisiide, kugugtii raxsaastiyo madfaca kiriirigtiisiide, rabaa gabayga ii kaahimee kaydun maqasheen. kalaan boqor sidiisii halkii kariirayde, kulligiin waxay dinkaafiiyo keliban gabnaynde, kaahi arooriyo salaad kicitinkeediide, kaafkii qur-aanka iyo wardiga kalawyadiisiide, karaayiyo kaxdii bulacle iyo ilaan kababyonde, geel kaalin loo dhigahay iyo kalima waaweynde, karuur labana kayd loo dhamiyo kabacda caanoodde, waayeelakood loo baxshiyo kulan goobaadreedde, kuraas lagu fadhiistiyo xariirkama mashdeediide, isna kaatunkii io hadhiyo kelima aan sheego, oo aan kuudka soo dhigo wixii kabaraday joogay, qismada aan furfuro ee bahay igu karaameeyey, kaba laguma faane anay kumaani jiifaane,
aan kala yaxeediyo nugaal kor uga sii dhoobsho oo aan kudarkeedii barbaara kala u geeyo idoorka kaynaya fadhiya kuro aan gaarsiiyo kulamada ogaadeen sidii kabaare aan geeyo aan kafeeyo goortaan hubsado ragaygu koodaadan sidii raaga kaan odhan lahaa kahanka caddeeyo kariin baa i uuntaye wixii kibiir amaan diido kabana maan ku daro hadal yaree xalay la ii keenay ee aan kayle ii qabaninee doqon kaskeediiya ee kuwan dhameeyay ee hiraab kala u geeyey oo kaa uun koonfur dheeriya abgaal kolonya loo geeyey oo kaaha ninuu xiilayaa kibiir u soo dhiibay hadda gabadhu waa kuud yariyo kibiiran weynaanay kaamilnimo hadday kuu tagtiyo inan kabiilowday inta kale haddii lala kohdeen weliba loo keenin waxa kaaha loo daynayaa adiya gulbayle kaba aha u toltolo meeshu waa kalinaad joogtaa. guuleed jucfe oo adduunka ka hadlaaya siduu isu bedelay 1936 wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedahaye casha noolba waxa ku imaan camal adyaabtaaye carab dheer wax loo jeedi jiray biliyo caynkeede sanaacagaaha loo daalin jiray cirif nugaaleede caraabada ninkii calanka yimi caawa soo hoyeeye andheegada cabaadiyo dabayl ciiri baa sidaaye in adduunba caynka ku lumaysow cunsura maaho cubtan geela cawliyo idin culus wadaasheeda boqol cagale wiil foofsadaa cud lahaan jiray cayr weeye liiraad ninkan caawa meel dhigaane in makhaayad cayshkii dhex galaysow cunsura maaho arrin culus amurays cuskaday talaa ciriiryootay curad iyo haddii caaqil iyo culima loo yeero xajada carada saabata ee soo cagdhigi weyday rag cuquulahaa fiirin jiray camal wareerkaasi baagada ninkii cuna u geesow cunsura maaha wax cimaamad loo qaadan jiray caabudee bahaye culimiyo waxaa la ogaa caalin diingalaye ciyaal iyo caruur baawatiyo cabaasa naagoode naflaa loo cobtamay oo dadkii caama ahaan xiraye caarootigan laysku roogay sow cunsura maaha caynaan fardood baa adduun caraafu roonaye baabuur sidii loo camiray caynna geeli waaye eesan riyood iyo baroor caarlebaa simaane inaan haatan lagu cilbaxayn sow cunsura maaha nagahan cudhe jida qabee cagaaha jiidaya cashiyo leyl waxay goobayaan nimay ka cayshaane inaan sinaada ceeb laga dhigayn sow cunsura maaha ismaaciil mire oo isna la hadlaaya hashiisii la oran jiray markab markii soodinta beenbeenta la sameynayay geelina uu ka xumaaday markii la raray oo carradii uu daaqa jiray hawd laga qaaday wuxuu yidhi markabee dalkii waxaa bannaan inaadan doonayne dugsi kuluulo doombiraley iyo dagaalkii reen weyne daroorimada lantii lahayd laysoo dacaaleeye docmiyo toomihii duri ahaa laga dugaagowye dooxiyo xirweynaba kufraa degay mareerkiiye daaro iyo bangaala miiran bay inaagu dayreene markaan didiri jiray waadigii damalka weynaaye daliigahana kurus baa ahaa duudkan feensamaye dararna waad lahayd ad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kugu furay dan iyo calwaaye diqda qaayib awrtana la daaq deeqa la jugay. ayax maxamed lowre oo isna ka xun suldaankii cali yuusuf iyo askartiisii oo talyaanigii intay qabteen ay xamar usoo dhoofiyeen wuxuu yidhi cali maxamedow gabay murtidii waan ka maaliyay
waan idinma sugaye baryaadiga muhateene mareer diidka waxaa igu wacan maanta saanahaye maantiyo kal hore waa adduun labadii maalmood hadba waxaa mursooraan arliga xal la mogyahay suldaankii mudnaa iyo laqaad maqaadimiintii nimankii marsada joogi jiray meeshii laga qadi maraakiib sidii loogu guray muuqan mahayaadhe muqdishow raggii loo dhigaan milicsanayaye macbuudow allahayow adaa meel u bixin doona. farax nuur oo isna adduunka ka faalloonaya isla markaasna sida dalka soomaaliya loo boobayo waqtigii xuduudada la qaybsanayay ingiriiska iyo talyaaniga amxaaradu wuxuu yidhi ingiriis amxaar iyo talyaan weya keekamiye arliga la kala boobayaan inuu italroone ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii hablii loo ogaa aqalkii diideene ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii la kala iibsado nala ogeysiine waduunii ninkaada amintaa kuwa bees yahaye ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii waduunii xaqii la arkayo la arjumayaye waduunii akhyaartii lahayd iibku doontahaye ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii afka iyo adduunka hadloo aasan sadarkii ninkay gacanta midigoodan tahay laga irdhoonaye ansa ila ah aakhiru saban idii bilkiisii odayaashan loo yeeraye la anfacsiinayo asxaabihii bayna iili gaal ha aaminiine haddaad niman islaam iyo tihiin aadan ubadkiisa oydnaan ilaahay ka go-in hayna oodinaaye. maxamuud cali beenaley oo isna ka hadlaaya dayuuradii markii ugu horreysay oo arkay iyadoo duqeynaysa ciidamada xabashida ogaadanya markii lagu dagaalamayay talyaaniga iyo xabashida wuxuu yidhi irka waxaan salaan ku surnayn sida sayaariinta un saraaca hoosiyo allada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqaarin haad ku sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siigo iyo leexo oon lagu salaaxayn haddaad sumuc ku liishanto balaayadan qalbiga suurisa ee samada xiimaysa oo sool dhexeed iyo hawada sulun sulxaynaysa oo gaal sameeyoon ilaah nolol u suuraynin lasabanka cid looga tegay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo arlada looga seertamay dhulka wixii socdaa lagu holaasamay colaadeede xagga sare wax kaa dilaahay oo suniyo baaruud leh oo aanad dagaal lagu sardaamay kaga sad qaadaynin inaad samirta mooye ma jiro waxaad samaysaa ee sarsar awdan samiyo aqal sibad iyo daar sarsar awdan saamiyo aqal sibad iyo daaru siraad iyo bannaan sohdin iyo sudi iyo meel hawdba socod iyo nagaanshiyo fadhi seexaad iyo rooris sina waxaanad kaga mag helayna lagu soo saariye 300 haddaad sii dhaxdiyo saayidiya maalmo salaadii dilaacdaba iblays dhalaala kaa saaran oo eebbahay kugu sallaaday sancad kama weyna sanaaciisa ka lala fajaacay bahashan soo saaray sixir lagu tusyaaiyo farsamo waxuu sameeyaaba alla ilaahe ninkaasa sanciyo saayiqnima sheegtay wax sawaabka hadheedle baa saabtay dunidii sintuu dhigay amxaarkii lahaa seerahan jabine kolka adigu soomaaliyay qaada samirkaaga oo dhahaa sinyorowna daawaanu soo geli. maxamed nuur laangare ninka la yidhaahdo
nuur maxamed waa ka xumahay nuur maxamed laangare ninka la yidhaahdo isagoo isna ka hadlaya dowladihii isdhaafdhaafayey ee kow iyo afartankii waqooyi duqeynayay talyaaniga iyo ingiriisku kala lahaayeen markay ku dagaalamayeen dagaalkii labaad ee dunida wuxuu yidhi guddiraawe soomaalay balgaraad xumadooda gaaladaa hirdamaysa sidii ay gacaliyiin ragunbaa miduguxa oo gunaha uga tumayo kana geesi ahaa iyo kani waa gabanaayiyo gambaraashku hadlaayo dhegtaydii gali weydayo dhammaan waa isku gaalo waa raggeena gumeeyay muslinkay gubayeen iyo cashuurtay gurayeen iyo nabsigii ku gaboobayba geeliman daba keenayo nasrigiiba na soo geliyo waxbana iga golmaaho inkastoo mid la gooyay gayigii laga qaaday geesla ii qori maayo dhaxalkii geli maayo waxbana iga golmaaho mid haddaan gob ku sheego midna aan gun ku sheego bakshiish lay guntin maayo oo gabgabtaydaba moogo waxbana iga golmaaho kan kala idin galaaya gaban baan ka ceshay rayadkan gacmihiisa nina eed uga geysan jeelka weyn gudihiisa garmadooba ha joogeen tina geeska ka tuurin tiradooda gartow waxgalkiisi iyo deeqdana gugaygii soddonkii shanbaan guudka ka dhaafay gudaha ceelka hargeysa intaa geesuma dhaafin intii aan waxgasiintiyo intaan gaaja ku seexday haddii aan isu geeyay malaa waa isku gow dowladda gabarkeeda ginigay shushubaysay baystinkeedii ma gaadhine hadday caawa ka guurto bal maxayga godoomiyo kol haddaan gurigayga garnay loola tegaynin iglan baa gubanaysa bal maxayga gidishay maxamed xaaji ismaaciil barkad cas ayaa kana tiriyey waagi hore loo aqoon jiray balaayo cas 1956 wuxuu yidhi awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adduun tiray haddaan ogahoonka alsan karay haddaanan aadanow ununka jarayn an ooye albaabka ii xira isagoo eglan jooga buu idilo ushuu soo fidshaay imayso wataa aramidi iyo fatirte asagliiba intaa ibadde ninka araggiisa urkaanka nabce an ooye albaabka ii xira horuu u yaqiin arliga keenno inan kitaaba qaadaba wuu ogyaho ishaafalatuu arlada ku yimo ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira wixii arrinaan ilaahay jeclayn haddaanan adimada ku oolin karayn amaanan adduunya ku iibin karayn aayaadka qur-aanka waad aragto udgoonayna yidhi indhaha ka qarshe ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira arligii ka samro adduun mahaye haddii la ilaashay afkaygii haddaanan ikhyaar aqoontay hadlayn haddaanan ere quraa shirka oranayn ninka araggiisa urkaanka nabce anooye albaabka ii xira ugaadha ninkii dhaqee urursada kale eegayaa adduunka baxshe raggana wuu ogaa horuu arke ninkii ooridiisa u geynahayo inkeyga iyo shaal ayuu ku arkine imowdee axankaaga weyne libaaxa anasiyo abaarsa kaciyey abuurin log joogtay baa uriso oday jabisa intay u dhacdo amsaxuu ka guraa idiilkeedo waa isticmaarkii iidahaye idina u dabaaldega ariyahow wardoo magacana ka iibsada isla maxamed ismaaciil isagoo ka hadlaaya sida uu u yahay
ninka dadka waaniya oo af dheer had iyo jeerna laga dambeeyo loona yimaado wuxuu isku maseeyey inuu yahay wargeys iski usoo baxa oo la mid ah ama kaba dhaqso badan kuwa kasoo baxa waqooyi. wuxuu yidhi alliwaa qarni iyo akhbaar sida, waxaan ahay tii afreynayso ayaan kasta tayda waa la arkaa. adduun bixiyo ishtiraak ma laho, qof walowba sidaa ogsoonow. kaasna waa isaga. gabayganna waa 1953 waxaa tiriyey cismaan yuusuf kennedy. arrimo badan buu ka hadlayaa, waana gabay aad loo yaqaan oo caan ah. waxaa la yidhaahdaa iyo u garnaqee doona. luuqdii tima cadde ayaan ku qaadi doonaa. niman bay iska galayaan aqoon gabayga xeeshiise, iyagan ka guurin laaxinkay golaha keenaane. nin gudmada ku toosinahayaan gaarna uga leexin, iyo gabi dhaclaynku ku yahay ow garneeqido. muslinkii gumaysiga ku jiray garay xumaantii, guhaadiyo wuxuu wada qabaa gayrashiyo ciile. giddigii islaamkii hadduu gees isugu bayray, iyo gaaladii aan ogan yow garneeqido. gardariyo adduunkan wax rogay garab ku taaglayne, suwayska gaarka lagu meershay wareera gurigoodi. gubni iyo colbaad degayaan rabin inay ka guuraan, godobta ingiriiskiyo najiib yow garneeqido. culimada gadaalkan waxaa galay khilaaf weyne, giyigan dariiqooyin baa gooni ku ahaaye. khaliifyada tan guutada watiyo calanka giirgiiran, iyo gabana soo baxay dhowaan yow garneeqido. soomaali gobannimo waxa uu geeyey leegaday, gabbaad lagu hirtaabay noqdeen amase gaashaane. nimanka u guntadayo xornimo goor walba u taagan, iyo kaan la garanayn macnaha yow garneeqido. guul iyo khasaaru miduu guurku leeyahay, gabal baa leedaa haddaan loo geeyaan dayne. gaari iyo ninkii ragihii waa gada heshiiyaani, godadlihiiyo goombarta xuma yow garneeqido. dadku garasha maankiyo caqliga wou gudboon yahay, garcadihiyo wiil haatan kacay way isgafahayaani. duqowda xafiisyada gasho talada goynaysa, iyo geesiyaal dibadda jira yow garneeqido. landheere goobahan jiray uy gocashadeed hayso, iyo kii ka gabnan jiro haatan garab jooga. gadda kaasi yahay baa kan kale gaadh is leeyahay, labada garaadoo gudboon yow garneeqido. gabalkood haweenkii la arag inay gadoomeen, guryay ku asurnaayeen intay gaabsanahayeen. gayi dheer wax laga sheegi jirayeyna soo galay, gabdhaha haatan joogiyo xilkana yow garneeqido. ninkii gaajo qabi jiray hadduu guulle waxu dhiibo, gadaal waxuma fiirsho hawaagaysa meel darane.
cidna uma gargaaro fakhrugu canabidkii gacalada tolkiyo dabaka naxya u garniiqido guulaystayaal ku dhashaa waa gargaarsimoy guulaystayaal ku dhashaa waa gargaarsimoy mid xaraga isgodayaa jiroy gabaari dhaantaay gablama caasiya iyo waalidkiiyo garniiqido